xubnaha gobolka togdheer xubnaha golaha deegaanka togdheer salaadiinta uqaasha waxgaradka marwooyinka iyo mudanayaasha gobolka togdheer dhallinyarada bahda warbaahinta waxaan idinku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxay raacdaa runtii dee xilli dambaynu joognaa waa soo gebagabaynaynaa xilkana waxaan u kala wareejin doonnaa labada guddoomiye ee midna laydiin keenay midna gebeley loo magacaabay guddoomiyaha maanta halkan aan xilka ugu wareejinay gobolka togdheer oo ay noo dhexeeyeen laba barasaab waxaan aqoonsanahay sida ay reer gelbiba u soo gelbiyeen inuu ninku muxuu ahaaye ku suntan yahay inuu nin dulqaad la yahay inuu nin go'aan qaadasho la yahay inuu nin reer togdheer oo dadka isku wadi kara yahay baan ka markhaati ahay intii aannu wada shaqaynaynay waa garanaysaan xamse waa garanaysaan waa wiilkiinnii burco ku dhashay intii aan togdheer joogay ee uu halkan ka shaqaysanayey ee uu shicibka ahaa iyo intii uu u magacawnaa gobolka gabiley halkan wixii aan kaga arki jiray iyo odaytinimadiisii buu la tegay halkaa maanta waxaan aqoonsanahay inuu wax badan ka qaban karo magaalada gobolka togdheer waxaan idinka codsanayaa dadweynaha reer burce inay la shaqeeyaan oo ay si wanaagsan ula shaqeeyaan halkaa ballanku ka qaaday ee uu idin yidhi waxaan idinku shaqaynayaa caddaalad inaad rumaysataan baan idinka doonaya ma rumaysananay taa xamse ma aqoonsannahay nin caddaalad ku shaqayn kara inuu yahay inaad kula shaqaysaan baan idinka codsanayaa runtii aad iyo aad baan ugu sii ducaynaynaa barasaabkii gobolka togdheer ee hadda xilka aynu ka wareejinayno isagana waxaynu ugu ducaynaynaa inuu halkaa uu tegay ilaahay ku asturo qolada reer gabiley dardaaran weyn bay idin siisay qolada reer gabiley waxaa idinku dardaartay oo ay farriin idinkaga tagtay waxaad xamse ka yeeshaan ayay eegayaan sababtoo laba gobol baa tihiin kaa uu ka soo shaqeeyo wuxuu yahay way ogaadeen waxay idin leeyihiin xamse waa nin qaran lagu aamini karo iska daa goboleh waxaannu doonaynaa xamse inaannu noqon qolada ku hagaasta gobolka ee qolada ka dalcado uu noqdo oo ka dhigtaan xamse kii kor uga kiciyaa siday burco looga bartay intooda badan badhasaabada aydaan ku hagaasinin oo aydaan la hadhin kartidiisa iyo awooddiisa iyo wanaaggiisa aydaan yasine aad soo saartaan oo aad garab joogsataan ood kula shaqaysaan baa laydinka baahan yahay waxaynu ogsoonnahay waxoogaa xanafa iyo waxaa la yidhi waa ciyaar muxuu orodku waa la kala badiy waxaan aqoonsanahay tartankii aynu soo gallee siyaasadeed horena waynu u soo gallay dibna waynu u geli doonnaa doorasho waa tiix qaada had iyo goor reer burco waxaan idinku ogsoonahay dad caadifad wanaagsan oo niyad wanaagsan baa tihiin inaad ilowdaan haddii wax muxuuha turxaanahoo yari soo dhex maray ama qadafii dadka soo kala dhex maray inaad halkaa ku ilowdaan waayo berriba waa la tartami doonaa ku ilooba halkaa saamaxa wuxuu ahaaye beerkiinna ilaahay burcada isku mariyee isu soo jeedaan idin leeyahay sababtoo ah waxaynu aqoonsannahay doorashadu waa wax marina soo mara ummadduna waa wax mar walba wada joogta wada jooggeenna aan ilaalinno wada jirkeenna aan ilaalinno walaalnimadeenna aan ilaalinno dhismaha togdheer iyo burcana aan ilaalinno oon ka shaqayno inu soo wada jeedno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu